maalin maalmaha ka mid ah waqti lagu qiyaasay 3600 oo sano ka hor, dadkii deganaa magaalada qadiimiga ee ku taala bariga dhexe oo la yidhaahdo Tell el Hammam waxay isaga mashquulsanaayeen nolol maalmeedkooda, iyagoo aan ka warqabin inay ku soo socoto masiibo qarax volkaano ah oo ku socday ku dhowaad 60,000 oo meel saacadiiba. Tell el Hammam, dhagaxii cirka ka soo dhacay ee magaalo dhan burburiyey. Kaga boga muuqaalkan insha Allah. Hawada waxaa ku soo jiray dhagax volkaano ka qarxay oo 4 kiiloomitir kor aaday. Qaraxaas waxa uu ahaa mid 1000 jeer ka awood badan bambadii atoomiga nukliyeerka ee lagu dhuftay magaalada Hiroshima ee dalka Jabaan xilligii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka 1945kii. Dadkii deganaa magaalada ayaa mar qura ku argagaxay markii ay si degdeg ah ugu indhabeeleen heerkulka. Wuxuu kor u dhaafay wax ka badan 3600 Fahrenheit ama mid u dhiganta oo ah 2000 digrii sentigareed. Dharkii iyo geedihii ayuu isla markiiba dab wada qabsaday. Seefaha, masaaraha, biraha kale ee la isticmaali jiray iyo dhammaan biraha waxay bilaabeen inay dhalaalaan. Durbadiiba si lama filaan ah magaaladii oo dhan ayuu dab u saameeyey. Ilbiriqsiyo kadib magaaladii oo dhan waxaa ruxay dhul gariir. Waxaa xigay duufaan ku socotay xawaare dhan 1200 oo mayl saacadiiba, taasoo lagu tilmaamay duufaantii ugu awoodda badneed ee abid la diiwaan geliyo. Dabaysha ayaa burburisay dhammaan dhismayaasha. Guryo 12 fiit kor u dhisnaa ayay dhulka ku dartay, burburkoodana waxay ku daadisay dooxooyinka. Cidna kama badbaadin. 8,000 oo dad ah ama xayawaano oo halkaas deganaa, meydkoodii iyo lafahoodii xitaa way shidmeen. Qiyaastii 1 daqiiqo kadib, 22 meel oo ka mid ah galbeedka magaalada Tell el Hammam ayuu qaraxu saameeyey, wuxuuna xaaqay ilaa magaalada Jericho. Derbiyadeeda ayaa burburay, magaaladiina way basbeeshay. Waxay u egtahay in laga sheekeynayo filim Hollywood ah oo naxdin leh. Haddaba sidee lagu ogaaday musiibadan ka dhacday meel aan ka fogeyn waddanka Urdun 10 sano ka hor? In jawaabta loo helo waxay qaadatay samaynta baaritaan socday qiyaastii 15 sano oo caddeemo badan lagu raadiyey. Waxaa kale oo la sameeyey ukurgelidda iyo falanqayn ay ku hawlanaayeen dad khubaro ku ah raadadka taariikhda dadkii hore. Waxaa iska kaashaday in ka badan 10 saynisyahan oo isugu tegay dalka Mareykanka, kana kala socday waddamo ay ka mid yihiin Canada iyo Czech Republic.